تعالى وبركاته داوديال مeel kastoo aad joogtaan waa saaxiibkeen Cabdirashiid Qanciye maanta dhinacayga midig waxaa fadhiya fanaan weyn maanta nagu soo booqday magaalada Hamburg ee wadanka Jarmalka muuqaalkan duwistiisa iyo gajistiisa waxaa mahad weyn iska leh saaxiibkeen Cabbaas sidoo kale muuqaalkan haddii uu ku soo gaarana saaxiibayaal la sii wadaag saaxiibadada kale oo si ay muuqaalkan u daawadaan ugu horreyn waxaan soo dhaweyn doonaa fanaanka adigoo ku bilaabaya magacaaga saddexan naaneystaadii dad badan waa ku garanayaan dad badanna waa la suwaayay janalka Qanciye adoo ku soo dhawaanaya marka hore waa mahadsantiin magacaygana waa alfanaan Prince Cabdiqani oo ku magac dheer Baanhof waxaan ku u mahad celinaa kun jeer ilaahay oo maantana kulmiye ayaa mahad iska leh iyo waxa kale oo mahad celinaa waxaan u mahad celinaa Cabdirashiid Qanciye fursadan sidoo kale fursadan qaaliga ay siiseen waa ku mahadsantiin aad baa mahadsan tahay dabcan markaad tiraahdo naaneysteedu waa Baanhof dad badan oo reer Jarmal ah waxaa ku soo dhacaya centerka magaalada naaneysta maxay kugu baxday naaneysten wallahi nin walaalkay ayaa ii bixiyay xilli hore ahayd Jarmalka intaan Denmark galna Jarmalka soo maray marka Baanhof ku igu arkay muddo kadibna ninkii Denmark ku kulanay war Baanhof uu yiri marka sidaas ay magaca igu baxay واتاي الفنانة طبعا غربها ولا يمد لكن ولا سوق الهرية مدة انتين لقى ياهد هذا كجو قصة كنتاي غربها وحنا يمد سجاشن كوجي أما كوي سجاشن خفص ويقانو وحنا دجانا هاي ودنك دنمارك كوبنهاجن وحاكلو أن آد وجعلها هاي مقالة هامبورغ إلى أن يرى مرة والبو أنا إماذا أي وسود دويان وسبيشالي عبدالرشيد قنعية إلى أن يرى دنه waxaan leeyahay waad salaamantiin intii muslimeena waxaan ku salaamaa islaane assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa tahay alfanaane aad baa u mahadsan tahay markii fanaan la weydiinayo su-aasha ugu horeysa dadku ku soo dhacaysa waxay tahay waqtigii aad soo gashay fanka iyo fanaaniintii maadaama 1900 iyo sagashamaadkii qorbaha imaaday koor fanka waad ku jirtay fanaaniintii adiga garabka ku soo siisay iyo fanaaniintii la soo shaqeysay hal iyo labo yaa kamid ah iyo xilligii fanka aad soo gashay xilligii fanka aan soo galay waxay ahayd 92 ama 91 kadib xogaa yara ka fadhiistay haddana waxaan si fiican u soo galay 94 ama 94 fanka waxaa dhinacayga istaagay allaha u naxariisto kulligoodana allaha u naxariisto maxamed suleymaan tubeec boqorkii codka allah yarxamu raaximiin iyo kulligooda waxaan leeyahay allah nii naxariisto oo soo garab galay garabkaygana soo istaagay fankan igu soo dhiirigeliyey rag kale ayagana badan waa ila shaqeeyeen walaalkay Zakariya Eno oo degan Norway musician ah fanka igu soo taageeray walaalkay al-ustaad Maxamed Weerow oo degan Holland waa mahadsan yihiin waa badan yihiin walaalkay Liibaan oo gitaarista bassista oo degan magaalada Oos Denmark marka kullina halkaan ka salaamaa boqorka codkaana waxaan leeyahay intii dhimatayna allah u naxariisto insha Allah ilaahay u naxariisto heestii kugu horeysay ee aad adigu leedahay heestii aad qaadayso marka laga yimaado heestii kugu horeysay Cabdiqani uu qaada ee uu leeyahay kor heestaas ayuu lahaa heestii ayay ahayd yaase ku sameeyay erayada iyo laxanka wallahi heesahayga waa badan yihiin waxaa ii sameeyay heesa Sadiq Aw Faarax oo Norway degan waxaa kale ii sameeyay Abwaan Cali Muuse oo hadda Kanada ku nool walaalkay Abwaan Cali Muuse iyo abwaano badan ay sameeyeen marka heesteedii ay ugu horeysay aniga aan leeyahay waxaa la dhahaa Tolmooney tufaaxdii hablaha iyo abwaan halkaan aan ka salaamay asigana aad aan u jeclaa Axmed Cabdi Gaashaan wuxuu ii sameeyay culus ahaa wuxuu ii sameeyay la dhahay aan ku sheegay shuurkaagaan rabaa marka waa badiin abwaanada oo garabkayga istaagay Sadiq Aw Faarax Axmed Cabdi Gaashaan abwaan Cali Muuse dadkaas ayaa ii sameeyay heesta Tolmooney erayadeeda wax ma naga maqalsiin kartaa adigoo ku luqeynaya ma santa Cabdirashiid Tolmooney tufaaxdii hablahay إن كستو تعدي قاد سميسيان إيري forget about علشان الحب لها جمال وصح ولكن هل كان السلام أبوان علي موسى واتاي مجرى فنان عاد كقدين جرتي فانكا أنت عاد كوسو بيرن
والله ما فنان وحاجري عدد كذا أن جعله فنانين وبدين سيدا كو حياتك وجعله محمد سليمان تبع عد كيسا مقال الله ونحرسته لكن عد كدتكم مدين جرين عد كيجا أنا كل صوناه واتاي هذا هم بوق سجنت هاي ملقيا وإن بنك فنيد مقالة كو قبته ما دام مدني يركل وفنك كو عصب ينا يجوجان نعم وحانو يمد هذا وحواب بنك فنيد ديارنينا إن شاء الله فنان عصب فنانين تانا وجعلها دل مرة خيار يو وحي جوجا ماشى أنا الله شقي إلا أنا قبل واللي يقصوا دوي فنك أنا وحن جعلها واحد دل يرى صباحين فنكنا وفري فنكنا وجعل أما فرحت marka inaan la qaybsado insha Allah xafladana waxaan rajeynayaa mar dhow inay dhacdo magaalada ka dhacdo waata waxaan rajeynayaa inaad magaalada Hamburg xafladda alfanaan Cabdiqani iyo sidoo kale dalmar inaad imaan doontaan Cabdiqani fanaaniintii maanta iyo kuwii hore maadaama la soo shaqeysay maxaa farqiga u dhaxeeya والله أنا كوي هرا وحن له ويكون هتسين وح وناكسنا يسوق بتين هذا نوجع الله كي نقولنا وحوي الله ونحرست كي دنتنا الله ونحرست كوا ما أنت جوجان إيجانا وح في عنا يسمين كل وحنو أركها بوستيف وقت جهر هذا الموسيقى قلب كمان تيالا قلب كان مجرين قف بقفة وحبوك كجوناكسين لكن كل جوده وحن له وما هسينهين فنكنا وسونا جين كوا هذا الجوجا أما كوي هرب واتاح waxaan rabaa su'aal ka baxsan fankiina ku weydiiyo qurbaha marka imaado su'aasha ugu badan ee Soomaalidu ay ku weydiiso maxay tahay wallahi su'aalaha waxa inta badan ay dadka isweydiiyaan dhinacaan qabiilka iyo waxaas marka waa la wareystay fanaanu qabyaalada ama qabiilka sidee u aragtaa markaas waxa iri niyow waxaan u arkaa indhahan dhamuujiin indhaha xiray in doolanka ahaan iri aniga wiilka jooga Ceelbuur ama Berbera ama Boorama ama Boosaaso ama Beledweyne ama Baydhabo ama Biyooley ama Kismaayo waxa warkaa kow muslim inuu yahay kadibna Soomaali inuu yahay in doolanka ahay qabyaalada ama qabiilkaba wata dhalinyarada maanta qabyaalada daba socota maxaad yani hal iyo laba dhihilaad والله وحن دي لهاي قبيل هدو واحترايو صدن يا فرسان صدن شسنا المرويا وحو تراهي ملاي الرسول كان صلى الله عليه وسلم وحيري قبيليست يبين لوبه نقم مدأها مركا إنان وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إن الرسول كان كدي سنة ومدى صوماليتنا وهالبراكو إسقاط غادي دادس دالويلي أبتقيسا إن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معناها قبيل كيغ هدانيك كما فاني كري قبيل كوح لك كسبادو أما واحد وقفك شقيستا معها إلهي إي دوري أبيه إيما دورين مركا واحد هذا لهين هذا كسبني هذا شقيستا إنا ميرسو استاغو لان ديران هاي أنكفانو وقلت لتعارفوا إنا ايوه واعتصموا بحبل الله جميعا هيس كلام سميه هذا دعاء ودنك او سميه استسوح الله ساتروا الله يو ايسو سعوتا سوسكي علاadaha naga wada sifay dadka dalkaba nabad ku soo celi aamin 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 mar hadii qof Soomaali saragtaan oo ku yiraahdanayho dal kale ku maleenayo kale maxaad oran lahayd wallahi dad badan aan la kulmaa qaar ay dhahaan Turkiga ku maleena qaar ay dhahaan Arab ku maleena ani ma ka waali mugtahay leen waxaan dhaarto marka hore facaalun lima yurid ilaahay nooc kasta asaa abuuri bini aadanka Chinese Arabi Soomaali madow iyo cadna caadilka abuuri markay saasi dhahaan ma baxanaaqi aan nin caroodi waa laga badiyay leen waa qofkan waa walaalkay ay macaanin Araban ku maleena wallahi aniga baan fari Oromaan ku maleenayaan leh وتعاد ما سنتهاي مقالك قيبتي سلباد استوديو هيك أيام كم ارتقادي دونا الفنان عبد الغني مجرتها هيسا نوقة تقيس ها عبد الرشيد وما سنتين هذه عباس به يودن يردن وما سنين هيستنا وحن له أنكو شيء شركة كان رواية شكل الآن يشوت يقول إمام شعب كان مدي أنك دورتاي شمعي كالجعلك فرحة يقول كان وحاس كلا الأبوان الأستاذ بابا أحمد دي عبدي قاشان أنت كسلامة عبد الرشيد وأدينا وكسلامة وما هسنتين عبد الغني هو فيها فنان كرير دنماغ وهم بكسوغن عباس أيام مقال كان لسه عداني وغنعية فضلا مقال كان سيشر قريب عاد بأسلامتين